بسم الله الرحمن الرحيم كسر channel مبروك productions waxyaabo maanta aan ku soo qaadi doonaa ay kamid yihiin muhiimadda YouTube-ka uu u leeyahay bulshada dhanka waxbarashada aan ku bilaabno midda koowaad waxaan leenahay wuxuu abuurayaa isdhexgal bulsho YouTube-ka qof wax buu soo dhigayaa qofna wixii qofkaas uu soo dhigay ayuu daawanayaa meesha waxaa ka dhalanaya isdhexgal bulsho oo dhanka waxbarashada ah wuxuu ku imaanayaa qofka macalinka ah maanta cashar buu soo diyaarinayaa marka uu soo diyaariyo laga yaabo arday uu dhigayo inay joogaan wadanka ka fog ama magaaladaas ka fog ardaydii marka YouTube-ka uu soo dhigaya wuxuu leeyahay arday hadda waan soo dhigay casharkii fiirsada ardaydii meesha ay ka daalacanaysaa waxbarashadooda meesha ay kasii soconaysaa YouTube-ka marka wuxuu leeyahay faa'iido ah isdhexgal bulsho midda labaad waxaa lagu abuuri karaa groupyo ama community oo isku dhafan tusaale ahaan hadda annagoo group ah ayaa waxaan sameyneynaa YouTube channel ayaan sameyneynaa waxaan leenahay bulshadii intaas ayaan soo barnay intaasaan u faa'iideyneynaa marka dad baa laga yaabo inayba aqaaninbo sida loo isticmaalo YouTube-ka naftirkiisa marka qofka camal wuxuu sameynayaa wuxuu ka daawanayaa YouTube-kii ayuu ka daawanayaa sida YouTube loo sameeyo loogana faa'iideysto midda kale community dhexdooda waxaa la sameynayaa qof baa wuxuu ka helay videogii lasoo duubay wuxuu sameynayaa comment uu kasoo dhiibanaya qof baa fikrad ka qabo wuxuu leeyahay waxaas iyo waxaasaa lagu soo dari lahaa wuxuu sameynayaa contribution uu sameynaya qofkaas fikrad buu kugu soo biirinaya marka meesha waxaa ka dhalanaya marka in la isdhaafsado opinions iyo ideas in la isdhaafsado fikradooyin oo qofkan ka maqnaa inuu helo asagana uu wax kale sii faa'iido midaas ayaa kasii dhalan karto midda kale oo muhiimadda YouTube-ka uu leeyahay dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah in uu online discussionka oo online-ka ah tusaale ahaan hadda waxaan sameyneynaa qof baa wuxuu soo gelayaa barta Facebook-ga wuxuu leeyahay waxaas iyo waxaas ayaa beryahan socda intaasaan ka bixinayaa fikradeyda ka baxsanaya qofka marka muxuu ifinayaa oo uu toosh ku qabanayaa waxyaabo badan oo bulshada ay ilaacsaneed ayuu iftiin saarayaa oo bulshadii uu soo bandhigaya midda kale oo afraad waxaa waaye mobile learning waxaan ka wadnaa midaas qofkan ardayga iskoolka iyo xaafadda u dhexeeyo maanta dhan iskuma dabooli karo boorsada ay ku jirto laptop oo laga yaabo in wifi uu u helin ama qad uu u helin laga yaabo qof kastoo maanta arday ah wuxuu leeyahay telephone uu leeyahay smartphone uu leeyahay so waxba isdhibin wuxuu si symbol ah raqiis ah ugu gelayaa telefonkiisa wuxuu leeyahay waxaas iyo waxaasaan rabaa inaan barto maanta muxuu sameynaya YouTube-kii furnaya wixii uu rabay ayuu raadinaya wuu helayaa meeshii ka baranaya middaa waxaa u sahlanaanaysa marka qofkaas in waxbarashadiisii iyo dadaalkiisii uu sii laba jibaarmo midda shanaad aan rabno maanta inaan ka hadalno waxaa waaye qofkii oo si qoto dheer u fahmayo wixii markaas uu damacsanaa inuu raadiyo oo u barto for example hadda su-aalahan way adkaayeen macalinkii si fiican waxba ma ugu fahmin ba ardaygan muxuu sameynayaa waxa uu sameynaya waxaa waaye YouTube-kii uu gelayaa casharkii markaa ku adkaa ayuu raadinayaa muxuu sameynayaa markuu raadiyo wuu daawanaya wuu ka ceshanaya wuxuu fahmaya marka si fiican ayuu u fahmaya midda lixaad aan rabno maanta inaan ka hadalno waxaa waaye
qofkii ardayga ahaa mise macalinka ahaa aan ku bilaabno midda macalinka waxaa waaye wuxuu diyaarsan karaa casharo soo isticmaalaya YouTube-ka. casharadan buugaagta ku qoran laga yaabo in uu rabo inuu baro ardayda wax intaas kasii dheer. wuxuu sameynayaa YouTube-ku gelayaa 10 daqiiqo 20 daqiiqo ayuu fiirsanayaa videogii uu ku ceshanayaa. wuxuu markaa ka diyaarsanayaa note. qofkii ardayga ahaa macalinka si fiican wax uga soo fahmin wuxuu imaanayaa YouTube-kii, wuxuu ka raadinayaa markaas casharkii, wuxuu qoranayaa note ama casharkii uu ka diyaarsanayaa note fiican. mar walba wax uu qorto uu joojisanayaa sida macalinka ardayda intaas u qoraayo camal maahan. waa wax adiga gacantaada ku xiran oo adiga aad maamulan kartid. marka uu joojisanayaa, markuu joojisto wuxuu sameynayaa wixii uu qoranayaa. haddana markuu fahmo next camal ayuu sii gelayaa. mid toddobaad ee aan rabno maanta inaan ka hadalno waxaa waaye waxay kor u qaadaysaa fahamka ardayga. macalinka wuxuu siin karaa oo keliya 25%. qofka ardayga waxaa looga baahan yahay dadaal iyo juhdi dheeraad ah inuu sameeyo si uu u fahmo casharkii ama duruustii maalinka uu soo qaatay. waxaa looga baahan yahay ardayga inuu dadaalo, dadaalkiisana ay ka muuqato. middaa wuxuu ku gaari karaa marka YouTube-kii u imaanaya, ardaygii wax buu kasii faa'iidayaa, wax badan casharkii ayuu ku ceshanayaa. middaa marka waxay kor u qaadaysaa fahamkii xagga ardayda. midda ugu dambeyso ee aan rabno maanta inaan ka hadalno waxaa waaye waxay ogolaanaysaa ardaydii in ay samaystaan YouTube video ayaga ay leeyihiin oo u qaasa. tusaale ahaan maanta waxaa noola soo diray projectiga maanta noola soo diray ama waxaan assignmentiga noola soo diray annagoo muraajaceynayno ayaan iska duubaynaa video. qofkana fahmayo, kana fahmayo. waxaan sameynaynaa intaan marka waxaan rabnaa in ideaskeena aan usoo bandhigno ardaydii kale. waxaan sameynaynaa marka video aan iska duubaynaa, YouTube-keena aan gashanaynaa sifo ardaydii kalena ay uga faa'iidaan. intaa waxaan kusoo koobaynaa gebi ahaan maanta faa'iidooyinka uu YouTube-ka u leeyahay bulshada dhanka waxbarasho ahaan. waa ku mahadsantihiin sida aad noola socotiin. subscribe saara, like na dhaha, share iyo comment na ha ka iloobina. waa mahadsantihiin badan.